ka imaanaya Kismaayo ayaa sheegay in magaaladaasi xubno ka tirsan sirdoonka Kenya ay kula kulmeen qaar ka mid ah musharaxiinta Jubbaland kuwaas oo ay kala hadleen inay taageeraan madaxweynaha haatan ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Mas'uuliyiin diiday in magacooda warbaahinta loo adeegsado ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in kulankaas uu ka dhacay magaalada Kismaayo isla markaasina sirdoonka Kenya ay la qaateen musharaxiinta kale ah Cabdinaasir Seraar iyo Cabdi Cali Raage waxaana ay ugu hanjabeen inay xayiraad dhaqaale ay Kenya saari doonto haddii ay taageeri waayeen Axmed Madoobe. doorashada madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa ka taagan khilaaf xoogan iyadoo dowladda dhexena ay sheegayso inaysan aqoonsan doonin habraac ay wax u wadaan guddiga doorashooyinka maamulkaasi. waxaan hadalkani uu imaanayaa iyadoo la aaminsan yahay horena Kenya xubno ka tirsan looga soo xigtay in dowladda Kenya hiil iyo hooba ay ku ag taagan tahay madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ay doonayso in markii saddexaad uu dib ugu soo laabto Jubbaland. hore waxay u sheegtay Kenya inay doonayso in uu dib u soo laabto madaxweynaha maamulka Jubbaland iyadoo sheegtay inay dana siyaasadeed ku wadato.